diyaar ma tahay maxamedow bal dadweynaha waxaan rabaa inaad ii weydiiso caawa xafladda siday u arkayaan gabadha ajnabiyada baan soo helay horta waxaan rabnaa bal dareenkiina iyo fikirkiina iyo caawa sidaad u arkaysaan iyo barnaamijka caawa ma anaga keliya baa hadlaynaa hi good evening wow af ingiriis u bilaabay can I have you stand up for a second thank you can I have igaarka xaaku ingiriis arsaco what is your name My name is Kate. okay Kate well thank you for coming to the anniversary I have a question for you how do you see this night what is one particular thing that you think that you want to mention to the crowd this beautiful crowd I want to say that I am so appreciative to grab the spirit and the joy of the Somali people, and it warms my heart to know that so many of you have found a home in Minnesota. I want to say thank you. I appreciate it. Thank you so much. maxamedow Haya. gabadha waa loo sacbiyey kuwa badan oo gadaal fadhi ingiriis badan ma yaqaanaan xaatala yaa u macnayha warkaas qof baan soo qabanaya oo kaadi bal nimankana bal soo qaba meelku ayagana waa raaway u dambeyn doonaa yaa sidee baad u aragtaa xafladda caawa horta sacabka intaan la gelin iska dardar dhimala kuwa dhulka fadhiya magacaaga noo sheeg magacaan dadku sheega xaliimo qaliif magoola la yidhaa xalay miya haye waa horta habeenkii ugu horreysoo meesha imaado kulligiin waa mahadsantihiin aad iyo aad aan ugu faraxsanahay this money Somalis wiilal iyo gabdho iyo dhalinyaro iyo carruur yaryar dhaqankeennii heesa Soomaaliyeed oo inta naga wada keentay hadda aad ugu faraxsanahay it's really something aanan ogeyn hataa inay magaalada ka socoto last 5 years laakiin one word of mouth waan gudbinaynaa in dadka dhan ka warqabaan oo si fiican loo ogaado arrintaa inay jirto xalay ma microphone may ha dhiibin microphone-ka hayso waxaad tiri xaliimo qaliif magool baa la yidhaha maxaa lagugu bixiyey waa magacan dadka u sheegto muxub baa la yidhaha magaciga caadiga muxubo maxaad ugu sheegataa magacaas because I love her heesaheeda taad ugu jeceshahay everything about her mid ka mida ii sheeg I can't carry a tune anaa kuu qaadaya mid baan isla qaadnaa maya microphone-ka hayso weli mid baan isla qaadaynaaye ya haye watee xalay durusti laydhigay intaan daawo laabo dayaxii habeennimo iga galay daruraha yaa salaam maxamedow bal haye qof baan ka helaya hal wiil ii soo qabo السلام عليكم يركا سو استهك واكي هذا فرق فيق ولا نقول والله سوق على هذيك لو حملها يا ورنيكاس وحشونا يا بدار بوليه كوريجي يا سوق وبدار بوليه همية استاق بدار تعال أركي استاق بقى تركيا ما حاول تجويس يا سوق نمك كده أنت ما يا شانة بلاي يا ها ورنيكا هي سوا ورا حفلة دعوة استاق نكان مركي وقول رئيسو قبرجع على ويدينا يا استاجبه waxaad iga warantaa heestii ugu horeysay ee Soomaaliya dhageysato goor meeqa sanaad jirtay markaad dhageysato horta aad iyo aad baan horta dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee xafladan ka soo qayb gashay aan u salaamayaa heestii ugu horeysay oo aan dhageystay waxay ahayd Soomaaliya toosooy aad baad u mahadsantahay inay gaadha rabtaa laakiin iska yeeli mayo weligaa jacayl ma ku galay jacayl waa galaha meeqa sanaad jirtay aduu waxaan jiray 20 sano jacaylka waad ka daaday maxamed wuxuu ii sheegay inuu 14 jir ku bilaabay aad baad u mahadsantahay maxaad caawa ka heshay xafladda warriyow dhammaan guud ahaan horta xaflad aad u qurux badan bay ahayd hadday ahaan lahayd heesaha hadday ahaan lahayd ii sheegay dhaqanka iyo dhalinyarada yaryarayd ee Soomaaliyeed ee caruurteena ahayd oo dhaqankii la barayo
run ahaantii waa habeenkii ugu horreysay oo aan meeshaan imaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa mahadsantahay halla laba qof oo kale waqti ma haynaa haye maya waa isku dhamaatay maxamed waa u soo noqonaynaa dadweynaha haye waa lanoo soo maxamed halla igu Thank you sacbiyo so much